mudaharaad ballaaran ayaa maanta ka dhacay gudaha magaalada Gabiley kaasoo lagaga soo horjeeday shaqaale dhawaa wasaaradda qorsheynta qaranku u qaadatay in ay xog ururin ka sameeyaan mashruuca sahaminta tirakoobka dadka reer Somaliland isla markaana laga reebay saamigii jaamacadda Gabiley ay ku lahayd shaqadaasi haddaba qaar ka mid ah dhalinyaradii mudaharaadii oo wajiyadooda ay ka muuqatay aad u xoogani isla markaana ay ku gubayeen jidadka waaweyn ee gudaha magaalada Gabiley taayiro ayaa mar ay telefishinka caalamiga Samsat la hadlayeen waxa hadaladoodii ka mid ahaa sida tani dadweynahan soo baxay in ay joojiyaan shaqaalaha dhexda laga keenayo aad baan ugu mahadnaqayaa waxa la leeyahay run ahaantii gobolka Gabiley waxa ku nool 200 oo kun oo qof waxa weeyaan haddii dad kale dibadda laga keeno ay diiwaan galiyaan oo ay yiraahdaan 30 kun baa ku nool yaa mas'uuliyadda qaadaya war diiwaan gelinta waxa xaq u leh reer Gabiley inay diiwaan galiyaan dadkooda wasaaradda qorsheynta qaranka waxa ay diiwaan gelinta ka dhacaysaa ma jiro haddii aanay ka shaqayn reer Gabiley sheegayna dhammaan ciidan dawladda qoraan oo ah maanta taayban lagu waxa lagu wallahi oo lagu bilaayay dhalinyarta halka joogta shaqeynaysa kuwa la shaqo odan lahayd kuwa la hadii shaqeyn waayaan wallahi intii ka dhigay bilaah gawaadidooda oo la salaarki doona haddaba mudaharaadkani oo aanay ka maqnayn qaar ka mid ah maamulka gobolka Gabiley iyo waliba xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka uqaasha salaadiinta iyo waxgaradka ku dhaqan gudaha magaalada Gabiley ayaa iyagu cod dheer gaashaanka ugu dhuftay iyagoo ka hadlayna waxay yiraahdeen ayaa la qorayaa iyaga xaq u leh gobol walba isaga cabashada ay ka cabanayaan shaqaalaha laga soo qabtay jaamacadaha kale ee gobolada kale ka jira ana waxaan u sheegaynaa oo horena uga duuqo wasaaradda qorsheynta ee jaamacadda Gabiley ay la mid tahay jaamacadaha Soomaaliland ka jira ardaydeeduna ay u qaban karaan hawl kasta oo looga baahdo ee jaamacadda leedahay sida toon joojinay qorshaha waxa lagu jigtay si cadaalad ah loo dhalinyarada gobolka ee bila amalka ka tagnay lahayn aan maalinta taariikh kala hadlaynay بس هي تهريبة أنا ما كان شغالي كم كسب بعدين على كلا درو حقاني فينا بس عكرة هي ما لو قرين وحاولنا حكومة يقوم الخاصك يعني ما ينو كان عندها الله كنا أجيس واحد قد خلاص waxaan maanta taaganahay sida waxa weeye wax badan oo waxa weeye ku dhaco dhalinyarta matalan taariikh baan ka sheekeynay taariikh waxa ka noqonaya إلى قيد جامعة كاني جميل ويكشفيني ما دام ما ممكن ما يحظي يوضيدي انت يدي بعد من وجودي يا شعوبتنا حاجه ugu kacsan tahay oo ayna ahayn shaqadii ugu horeysay amba tii ugu horeysay Hargeysa looga soo diro amba gobolada kale aan malaynayaa xukuumadda inayna xisaabsanayn Gabiley joogaan ka aqoonyahanaa Gabiley inay lahayn jaamacado waxaan dhalinyarada ku gubaabinaya dad aan saa wax u dul xukumo yeelan ka hadlaya arrinta ka dhacday shaqaqada yar halka ka dhacday waxaan moodaa in xukuumaddu iska dhatirayso gobolka dadweynaha halka ku nool maadaama gobolkan aanu lahayn hay'ado shaqeeya maxay ahayd aanay deganay wasaarado fara badan waxa wajaa shaqada soo baxdana in gacanta la soo geliyo Hargeysa shakhsiyaad ku soo qortaan marka wasiirka qorsheynta saacad oo aanu haystay inuu yahay dadka ugu caqliga badan ee wasiirada maanta jooga waxaad moodaa inuu ka aag maray arrintaas si kastaba ahaatee maalmihii ugu dambeeyay ayaa magaalada Gabiley waxaa xoog looga dareemaya mudaharaadyo ballaaran oo lagaga soo horjeedo go'aankani ay wasaaradda qorsheynta qaranku ka qaadatay in aanay haba yaraatee ka qayb gelin dhalinyaro ku dhaqan gudaha magaalada Gabiley